ay noqotaynaan cawagaardiya kambada tuura hagaba sarte geesudha curadadii la dhashaa cawo guursadee ay hobalaay haddaba anigu kuma odhan waxay hooyadeed ku tidhi allahooye hoyaalayey hoyaalayey hooye war hoyaala hoyaalayey hoyaalayey hooye allahooye hoyaalayey hoyaalayey badda gabayga heesaha batiyo waxaa jacayl bahay bere horeano ilaaway oo bugoodina laabay oo aroos badha ugu jiro bela baaxay damay oo bilaan waxay joogtay iyo raaxa boogana ayuunba askari buubayaa igula boodayay badhahaan istaaga sidaan beela soo rogay aniguna budhlama duulo iyo torri aha baasi anigabaa lay barayaan gabay binaya bar wanaagsan moolaan la bixinba waraaqalkaale biladnimo buruud geesinimo boqor caaruskaale berrigeenna midan laga helay badaha mooyaane oo qalanja loo bogoyaan ruuxna igu beenin haddan gabayga bandhaynaqa boqorada saale bogcadaha jabuutiyo ilaa beledka ciisaale berberiyo hargaysiyo burciyo taniyo boosaaso dhanka bariba loo eegayo besha xamartala intaan soo bannaan iyo badiyo bur isugu qaybsan casrigii badhaaygu jiru kala soo baxayeen waxa weeye baadidaadii ay ururiso oo gurigaagii ay noqoto oo hoygaagii noqoto ninku intuu dhallinyarada yahay aanu reerka lahayn baadi badan buu leeyahay naftiisaa lumaysa maryihiisa meel uu kaga warramaan ogeyn meeluu seexanaya uma cayinna waa iska barakac weeye ninku intaanu reer lahayn waa barakacun barakacayaashan buu ka mid yahayoo dee habeenba guri iyo gidaar buu iska seexanayaa waa iska dib jirkaa weeye laakiin markuu reer yeesho arrinkiisa meel buu ku urursan yahay meel buu magaca ku leeyahay halkaasuu ku nasanayaa halkaasuu ku nafisayaa halkaasuu ku degayaa litaskunuu ilayhaa waxa ilaahay cilladda waa maxay dumarka ilaahaydan ku abuuray litaskunuu ilayhaa inaad ku degtaan baa ilaahay maankiisii baa degaya ninku intuuna reerka lahayn waxbaa ka yar fudud sibuu u yar fudud yahay sibuu u degdeg badan yahay sibuu arrinkiisu u kulul yahay laakiin markuu reer yeesho sakiinuu helayaa deganaashuu helayaa wey oo qof mas-uula buu noqonayaa oo mas-uuliyad la saaray oo caruur aabba tidhi oo waxa weeye maaragtay mas-uuliyad iyo xilfuulay oo waayo arag noqday buu noqonaya wax badan baa iska bedelay haddana ilaahay wuu sii waday wajacala baynakum mawadatan waraxma ilaahay dhexdiinna wuxuu dhigay mawadatan waa kalgacayl iyo jacayl iyo waraxmatan naxariis baa ilaahay aayaadka ilaahay ba ka mid ah sida ay gabadhu ninkeeda ugu naxariisanayso iyo ninku gabadha ugu naxariisanayo wax la soo koobi karaya maaha waa marka la isfahansan yahay wey dee reerka caadiga sharcigaa yahay wey naxariista ilaahay dhex dhigay iyo sida laysu jecel yahay iyo sida laysu dareemayo waa si ka badan siyaabaha kale weeyaan hadda waa marka guurkii saxdaa yahay wey haddii laakiin taa la waayo mawado iyo naxariis la waayo reerkaasi waa markaa meeshaas dee sakiina la waayo deganaansho la waayo guri lagu qayliyan noqdo guri laysku laayan noqdo guri lagu khilaaftamo noqdo la isfahmi waayo halkaas markaa mawadadii iyo wixii sababtii ilaahay dumarka inoogu abuuray ayaa ka baxaysa